قرد الماني ميلان عيدة توبيا هالوغالو دوني وغرد قدلو عيدنا عصر تبينيني تعديدا لكي سنايو كوها كاستا تاغني صوت بي حقيقي دينك SMC 49 maalin ayaa laga joogaa diyaaradii ku dhacday magaalada Bardale ee gobolka Bay. Tan iyo xilligaasi ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda shilkaasi. Waxaa jira guddi saddex geesood ah oo ay magacowday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ilaa iyo hadda lama oga natiijada baarista ay sameeyeen guddigaasi. mana jirto cid sheeganayso in ay wadaan dadaalo ku aadan sidii meel loo saari lahaa sababta keentay in la soo rido diyaarad siday gargaar bani aadanimo. baaris ay sameeyeen warbaahinta wadajirka ah ee SMC sababta keentay dhicitaanka diyaaraddaasi ayaa sheegaysa in ciidamada Itoobiya ay si cad u soo rideen diyaaraddaasi. waxaana la hadalnay ehelada dadkii diyaaradda ku dhintay shirkadii lahayd diyaaradda xubno ka tirsan guddiga baarista ee saddex geesoodka ah wasaaradda duulista ee Soomaaliya iyo dad goobjoogyaal ah. waxaa isweydiin mudan maxaa dowladda uga aamustay shilkaasi. ma la helay sanduuqii madooba ee diyaaradda laga heli karo xogta sidii ay diyaaraddu u dhacday. yaase lagala xisaabtamayaa qasaarihii halkaasi ka dhacay ee isugu jiray dhimashada iyo hantidii ku baaba'day ee diyaaradda qaybta ka ahayd. dhicista diyaaradda May 4 2020 saacadu markay 3 galabnimo ayay diyaarad xamuul ah oo nooceedu yahay Embraer 120 nambarkeeda diiwaangelintuna ahaa 5YAXO lagu soo riday garoonka diyaaradaha ee degmada Bardale halkaasi oo u siday qalab caafimaad. wasaaradda duulista iyo hawada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay warqad ay ku sheegayso inuu dhacay shil diyaaradeed ayna samayn doonto baaritaan iyada oo aan wax faahfaahin ka bixin dadka ku dhintay iyo cidda diyaaradda ay u rarnayd. diyaaradan dhacday ayaa waxaa laga lahaa shirkadda African Express waxayna ka diiwaan gashnay dalka Kenya. laanta socdaalka iyo hawada ee dalka Kenya oo warqad soo saartay May 5 iyada oo ay ku sheegayso in ay hayso xogta dhicida diyaaradda ayna ku dhinteen 6 ruux oo reer Maylaana iyadoo intaasi ku dartay in ay xiriir la samayn doonto laamaha ay qusayso ee dowladda federaalka Soomaaliya. 5 May sanadka 2020 war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Kenya ayaa lagu sheegay inay labada madaxweyne Uhuru iyo Farmaajo ay ka wada hadleen baadhis lagu samaynayo shilka dayuuradeed ee ka dhacay degmada Bardale gobolka Bay Jamhuuriyadda Barakaysan ee Mayland. dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la samaynayo guddi saddex geesood ah kaasoo ka kooban Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya. waxaase la yaab leh in qofkii dembiga galaya uun guddiga lagu soo darayo. war qoraal oo ay AMISOM soo saadhay 5 May sanadka 2020 ayay ku sheegtay in diyaaradda dhacday markii ay degaysay ay ka degtay jiho qaldan. waa siday hadalka u dhigeen waxayna ku dartay warbixintu intaa in ay halka joogeen ciidamo aan ahayn kuwa AMISOMta oo Itoobiyaan ah. sidoo kale waxaa warbixinta lagu xusay in shilka uu ku dhintay amaba ay ku geeriyoodeen shaqaalaha diyuuradda oo kala ahaa 5 ruux, 3 Kenyan ah iyo 2 u dhashay Soomaaliya gaar ahaan Jamhuuriyadda Barakaysan ee Mayland. marka la eego waraaqadaha ka soo kala baxay Kenya iyo AMISOM waxaa muuqata kala dunaansho qasaaraha dhimashada ee ka dhashay dhicida diyaaradii magaalada Bardale. dowladda federaalka ee Soomaaliya ma sheegin tirada dadkii ku dhintay diyaaraddaasi balse inta ku nafweysay diyaaradda lagu soo riday magaalada Bardale ee gobolka Bay ayaa waxa ay gaarayaan ilaa iyo 6 ruux oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan. علي حسن عبدي صومالي، سعيد عبدي محمد صومالي، عمر عبدالله جمال كيان، مبروك اسلام مبروك كيان،
xasan amiir muuse kenyaan iyo charles oo u dhashay dalka kenya. xiriir ay Southern Media Corporation la samaysay qaar ka mid ah ehelka iyo qareennada marxuumintii ku dhintay diyaaradda ayay dhammaantood isku raaceen inaysan jirin cid ka socota dowladda Soomaaliya ama guddiga baarista oo la wadaagay xogta ku aadan dhacista diyaaradda iyo cidda soo riday. Cabdullaahi Xasan Cabdi oo ka mid ah ehelada dadkii ku dhintay shilkii diyaaradeed ee Bardaale ayaa yiri dowladdii aan ku tiirsanaynay ilaa iyo hadda noomaysan tacsiyin maynana soo raadin wayna iska aamusan yihiin wax ay noo qabteenna ma jirto waxaan u baahannahay caddayn maadaama ay dhibaato dhacday oo dhibaatadaasi la geystay qofkiina uusan soo noqonayn laakiin waa in aan helno dadkii qaladka geystay iyo weliba magdhow dadkaas meesha ku dhintay lagu bixiyo. warbaahinta ku bahawday Southern Media Corporation oo loo soo gaabiyo SMC oo xiriir la samaysay mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda African Express ayaa ogaatay inaysan jirin xog rasmi ah oo ay dowladda Soomaaliya la wadaagtay shirkadda waxayna intaa ku dareen inay cabsi iyo walwal ay ka qabaan inay waayaan caymiska ay shirkadda ku jirtay sabab la xidhiidha dowladda oo aan war rasmi ah ka soo saarin sida diyuuraddu u dhacday iyo cidda leh mas'uuliyadda shilka dhacay. Mas'uul qariyey magaciisa oo ka tirsan African Express ayaa yidhi waxaan weli dowladda Soomaaliya aynu ka la'nahay xitaa warqad inoo qora oo aad ku caddaynaysaan in diyuuradda lagu soo riday degmada Bardaale gobolka Bay ee Jamhuuriyadda Barakaysan ee Maryland si aynu u helno xaqa dadkii ku dhintay shilka diyaaradda. Sidoo kale waxa uu sheegay mas'uulku inaysan jirin wax warbixin ah oo ay shirkaddu ka heshay guddiga baadhista iyo wasaaradda. waxaa sidoo kale xiriir aynu la samaynay haddaynu nahay warbaahinta SMC xibin ka tirsan guddiga baadhista oo aan magaciisa u qarinay sababo amni daraaddood ayaa inoo sheegay in la kala diray guddigii baadhista ee ka koobnaa dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo weliba Ethiopia taariikhdu markay ahayd 24 May 2020 waxa uuna intaa noogu daray inay guddigu warbixin u gudbiyeen wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo ku magac dheer Omar. warbaahinta SMC oo mid ka mid ah guddiga hordhigtay su'aal ah maxaa ka jira wararka sheegaya in guddiga baarista aysan helin sanduuqa madow ee diyaaradda ayaa ka meermeeray in uu si cad uga jawaabo waxaana uu ku gaabsaday inay guddiga gudbiyeen warbixinta loona sheegay inaysan ka hadli karin arrinkaasi. isla su'aashaas ayaan waxaan weydiinay mas'uul sare oo ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxaana uu warkiisa ku soo koobay waa la heli karaa waana la weyn karaa. waxaa sidoo kale xiriir la sameynay wasiirka duulista Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar waxaana uu noo sheegay in aysan weli dhamaystirnayn warbixinta balse waa uu ka gaabsaday in uu ka jawaabo in la kala diray guddiga uuna hayo warbixin ay soo diyaariyeen guddigaasi. xog la helay ayaa waxa ay sheegaysaa in ciidamada Ethiopia ee ku sugan gobolka Bay ay maamulayaan hawada inta u dhaxaysa magaalada Baydhabo iyo Bardaale. Faadumo Xasan Bullo oo ka mid ah dadka deegaanka oo la hadashay Southern Media Corporation ayaa xaqiijisay inay maqashay dhawaaqa rasaas ka hor inta aysan diyaaradda dhicin. Gudoomiyihii hore ee degmada Bardaale Widow Cali Xasan asna waxa uu inoo sheegay in caga dhigashadii diyaaradda ay aragtay ciidan ku jira garoonka gudihiisa markay kor u kacdayna lidkii diyaaradaha ayaa lagu riday taasi ayaana keentay in ay diyaaraddaasi sidaynu ka warhayno dalka Soomaaliya ilaa iyo hadda ma laha sharciga maamulka hawada balse baarlamaanka ayaa waxa uu ansixiyay sharcigaasi 10kii bishii February 2020 welina waxa uu hor yaallaa miiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo laga sugayo inuu sharcigaasi saxiixo. su'aalaha u baahan jawaabaha xaqiiqda ayaa waxay kala yihiin maxaa ka hortaagan dowladda Soomaaliya inay soo gudbiso warbixinta dhabta ah ee diyuuradda lagu soo riday degmada Bardaale gobolka Bay Jamhuuriyadda Barakaysan ee Maryland yaase iskale mas'uuliyadda dhixitaanka diyuuradda yaa lagu leeyahay magdhowga iyo khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray shirkadda African Express waa maxay saamaynta ay ku yeelanayso duulimaadyada Soomaaliya soo dhixidda diyuuradda African Express ma runbaa in weli la la'yahay
sanduuqii madooba ee dayuuradda. طلعت الماني مايلا عيد توبيها لوغالو دوني وقالت لك وديلو عدنا صوت بنيني طلعت الماني مايلا عيد توبيها لوغالو دوني وقالت لك وديلو عدنا صوت بنيني تعديدا لقيسنايو كو حكاستا وتاغني صوتي حقيقي تيمكا SMC يوكتا علوس تيمكا SMC يوكتا علوس تعديدا لقيسنايو كو حكاستا وتاغني صوتي حقيقي تيمكا SMC يوكتا علوس تيمكا SMC يوكتا علوس تيمكا SMC يوكتا علوس وارباهين وتاغن سحدا طريقها قلدميو توسنتا سياسة ميلان قلدميو توسنتا سياسة ميلان تضب يلا SMC أرجع ياسير أبيكر أنا سامع آذن إنجليز تحدثي محمد وطني تفكر أحي عبد نور تيجيلا أجوك تعرس نبي عبدي رحيم محي كبقى لي أحمد أولول عبد الله عرالي تولمون حليمة جيلاني سحب ميلان تيسيقودو وحياهي ترسيغا أقونتيو تيكا دقالي ميلان تيممكا سحب ميلان تيسيقودو وحياهي ترسيغا أقونتيو تيكا دقالي ميلان تغيردا ay siinayana kuwa markasta u taagani taakulaya dadkooda tiimka SMC iyo joogta culus تيمكا SMC يوكتا علوس taageerada ay siinayana kuwa markasta u taagani taakulaya dadkooda tiimka SMC iyo joogta culus تيمكا SMC يوكتا علوس
maskaxda kalitiyo talado maylan foganshaan tiimka SMC iyo jugta culus waa saxafiin ku taamantayinta maskaxda kalitiyo talado maylan foganshaan jugta culus تبي عبدي رحيمنا تبقى أحمد أولول taliye cabdullaahi carale تولمون حليمة جيلاني todobyada SMC waa طارق يا ياسين أبيكر قال سمع آذن إنجليز bixiye maxamed wadani تفطير ماحي عبد نور tirigeeda جوكت علوس waa